carruur ayaa dhintay mid kalena dhaawac daran ayaa soo gaaray kadib markii duqeyn ciidamada Kenya ay ka geysteen deegaanka Caws Quran oo ka tirsan degmada Ceelwaq ee gobolka Gado. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada Kenya ay soo gaareen deegaankaas dhowr iyo 20 saac ka hor inta aysan samaynin duqeynta. Wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo la xiriirtay maamulka iyo qoyska ay dhibaatada ka soo gaartay duqeyntan ayaa warbixin ku eegaysa. mahadsanid jaamac labadan ilmaha ee dhimatay ayaa waxa ay kala ahaayeen da'aad 13 jir iyo 7 jir waxaana mid ka dhaawaca uu soo gaaray oo xaaladiisa laga deerinayo uu jiraa 5 sano sida uu VOA-da u sheegay aabaha dhalay cunuga 5 jirka waxaa madfac uu ku soo dhacay ilmahaasi markii ciidamada Kenya oo soo gaaray deegaankooda baadiyaha Caws Quran ay bilaabeen inay madaafiic ridaan taasoo keentay in qasaaraha uu soo gaaray carruurtan oo markaasi la socday xoolo aan sidaas uga fogeyn guryahooda deegaan hoos yimaada degmada Ceelwaq ee gobolka Gado. Dhaqana Cali Salaad oo dhalay Cabdinaasir Dhaqana Cali oo isagu 5 jir dhaawacana uu soo gaaray xarun caafimaadna cunugiisa la joogo ayaa sidan ii sheegay. waxa weeye Abuukar Ismaan Cabdi oo 13 jir uu dhintay, Aadan Axmed Maxamuud oo 7 jir uu dhintay, Cabdinaasir Dhaqana Cali oo 5 jir ahna waa garaabas. ma ay carruur joogtaa tuulo iyo wax magaalo joogta ma ay marka xoolo waxay la joogeen boodka ayuu xoolo boodka la joogo ku dhacay mid fiican carruurta dhimatay 2 canug baa dhimatay, 2 canug nin seedigay ahaa waa dhalay, mid hadda garaaba taana dhalay. meeshan garabka caaradiisana way reeqan tahay oo way burbursan tahay. meeshan labxunshada liiro kalxanta waa xabad baa ka gashay, cunaha oo hunguriga ahna uu kala go'an. maamulka degmada Ceelwaq ee deegaankaasi uu hoos yimaado ayaa ii xaqiijiyay in duqeyntan ee dhacday waxyeeladana ilmahan ay soo gaartay. waxaa sidoo kale maamulka ay sheegeen in ciidamada Kenya ay duqeynta geysteen markii bidhaan arag ay ka arkeen dab ilmahaasi u shidnaa. Sahal Macalin Aadan gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelwaq ayaa sida tan ii sheegay. Zaro walaal waxa weeye abaari 6 iyo barkii shalay garab ayaa waxaa ka dhacay degmada Gariley duleedkeeda ciidamada Kenya KDF loo yaqaano howlgalo ay ka sameeyeen shalay iskood u sameeyeen ayagoo ciidamada Soomaaliya oo deegaan ku dhashay joogan goortii ay howlgalooyinka waxay soo dhameysteen ay soo gadoomeen waxay arkeen dab meel ka shidan oo bilaan arag ka fog aragtida aad ugu fog kadibna waxay ku tuureen madaafiic hoobiyaal bay ku tuureen. aabaha dhalay cunuga dhaawaca culus uu soo gaaray labada cunug ee dhintana ee ehelka ahaayeen ayaa ii sheegay in ciidamada Kenya saldhigeeda ay ula carareen dhaawacyada 2 cunug inkastoo markii dambe mid uu meesha ku qurbaxay midna dhimasho uu ahaa laakiinse aysan wax garaabasho ah aysan ka helin. wajan meedka waan qaadnay markaan geynay xariir shalay noo kula soo duulay waa nagu soo inkaray oo diyaar naftanadii aan waris ku sii galnayba marka odayaashaas way jireen waxaan geynay meydkii nin soo meeyaan geynin kale intaan taagneen oo banaanka la taagneen buu meeyay marka ma jirin oday xurmal oo sideedaba taasi ay wax ugu qabsoomaan oo meesha ama laga soo dhaweeyay ama wixii ku dhacday laga booqday ma jirin laakiin isku day waa jiraan inaan meesha fiirin. mid ka mid ah su'aalaha aan weydiiyay aabahaasi Dhaqana Cali Salaad ayaa waxay ahayd waxay ku xaqiijin karaan in duqeynta ilmahooda ku dhacday ay ahayd mid ka timid ciidamada Kenya ee deegaanka soo gaaray. tali baawur Gariley martay oo meesha xaafadaha markay joogaan inta meesha ida lagu rakabay madaafiic laga daadiyay ayaa weeye ma ahan diyaarad ma Gariley bay mareen shalay 5 saac ay mareen markay xaafadihii baadiyihii meelihii eeriyada xoolihii ay daaqayeen Gariley dhankan Soomaaliya xaggeeda oo dhan baar dheer ay kaga dhamaadeen bay madaafiicda sideen carruurtuna soo ku dhamaadeen. sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa waxyeelo ba'an ay ka soo gaaraysa dadka iyo xoolaha ku dhaqan deegaanada ay howlgallada ka sameynayaan ciidamada Kenya ee ku jooga mandate-ka AMISOM ee dagaalka kula jira Al-Shabaab deegaanada Jubbooyinka. waxaana xusid mudan in maamulka Gado gaar ahaan degmada Ceelwaq ay ii sheegeen inaysan ciidamada Kenya u meeldayn duqeynta ay geysanayaan oo waxyeelo dad fara badan oo shacab ay ka soo gaartay. si aase arrintaasi wax uga weydiiyay waxa ay uga jawaabayaan eedaha loo jeedinayo ciidamada Kenya ayaa saraakiisha oo aan kula xiriiray khadka telefoonka aysan ii suuroobin inaan helo. aad iyo aad ayay mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan loogu eegaysay duqeyn loo geystay dad shacab ah oo ku nool duleedka degmada Ceelwaq ee gobolka